السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayay inaan hal yaro keliba kaga hadlo risqiga Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qoray. Horta naf kasta oo nooli ilaa ay risqiga dhammaystirato rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhiman mayso yidhi. Risqu waa shayga qofka inta yar ee adduunyada uu ku nool yahay uu quudanayo. wax qofka Ilaahay u qoray subxaanahu wa tacaala waayi maayo. marka inagu oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala og inuuna risq keeno oo aanan dhammaysanin aanan dhimanayn, inagoo og wixii Ilaahay inoo qoray subxaanahu wa tacaala inuu dhinacna inoo dhaafaynin, maanay ceeb ahayn inuu qofku xaaraan ku raadiyo. waa arrin khalad wey. marka waxa weeye wax loo baahan yahay adigu keliya waa inaad ficilkii la timaado. asbaabtii risqa kuu keenaysay waa inaad la timaado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo ku kalsoon oo tawakalkiisa ku kalsoon waa inaad risq xalaala raadiso. maana ka xumayn adiga oo kulley risqii lagu qoray cuni lahaa, laakiin waddada uu kugu soo galay ay aad u khaldantay. adduunyadana waa aad iyo aad ay runtii u tahay mid imtixaan badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu risqa xalaasha ina haleeshiiyo, inagala badbaadiyo risqa xaaraanta. inta yareen nool lahayna aynu xalaasha quudano. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.